Hargeysa waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu ballaaran guud ahaan geyga Soomaalida. waxaana ay hooy u tahay kumanaan ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasi oo leh ama qabta shaqooyin kala gedisan. dawaarka ama harqaanka oo ah qaabeynta hogga aadami waa mid ka mid ah miinadaha farsamo gacmeed ee dadka ehelka u ah xirfadaasi ay ku shaqaystaan. haddaba saaka waxaanu ku booqannay goobtiisa shaqo Maxamed Cabdi Cismaan oo ah xirfadle dhartoranimo ahna madaxa dhalin iskaashata dawaarlayaal ah, kuwaasi oo hawsha wadajir u qabta. waxaana wax ka weydiinay sooyaalkiisa shaqo, fahanka bulshadu ka haysata hawsha ay hayaan, iyo sidoo kale hilaadka ay higsanayaan. isagoo xog waafiyana siinayana waa kan. farsamadan gacanta ilaa adigu waxaan ku jiray 10 sano meelaha way gaadhaysaa. dhammaanteed horta waxaan bartan ku wada joognaa waa rag dhalinyaro mujtamacan aan ku wada noolahay oo dhammaantood waxay ka wada shaqaystaan farsamada gacanta. ilaa waxaan ku joognaa gaadhaysaa 50 nin meelaha waan gaadhaynaa. 50 kagana waxaan u shaqaynaa waa badanaa dawaalayaashu waxay u kala baxaan dhar rag iyo dhar dumar. majority anagu waxaan talnaa dharka dumarka amba xijaabada amba wixii kale soo raaca ayaan tolnaa. inteeda kale dhammaanteeda bartan joogtana waxay tashaan farsamada gacanta ee xijaabada dhammaantood ay wada tolaan gebi ahaan. niyo ragga dhalinyarta aad bay horta aan shakhsi ahaan aan taageersanahay. wadankana dhaqaale badan ay soo geliyaan oo aan ku raacsanahay. dhammaanteeda dhalinyarta tahriibisa ama maanta sifo kale ku dhaqmaysa. maanta waa ragga dhalinyarta farsamadoodii dhididkoogii la soo baxaya. waan ku faraxsanahay aniga shakhsi ahaantayda waan ku qanacsanahay. dhammaan ragga meesha joogaana way ku wada qanacsan yihiin inay maanta farsamada dawaarka ay mustaqbal ifaayo dambe ay ka sii yeeshaan. aniga shakhsi ahaantayda waan ku qanacsanahay. xirfadan dawaarka waxaan ku bartay markii koobaad anigoo ardaya ayaan soo galay meel tabtan oo kale mujtamac rag waaweyn ay dawaarka ku bartaan. kadib markay aan meeshii yimid dawaarkii first waxaan ka bilaabay maryaa sida loo kaawadayo kaawiyad baan ka bilaabay. kaawiyadii markaan ka bilaabay sidaan sii socday waan ka sii gudbay. markii dambe waxaan noqday in aan dawaar aan fuulo. kadib markaan dawaar fuulay anigiina dawaarkii sidii aan ugu shaqaynayay baan maantana ugu shaqeeyaa. dhammaanteedana horta waxaan ka soo wada baxnay deynteedan dhalinyartaa in aan goob shaqo nimid. goobtii shaqana kadib aan ku barnay dawaarkii, kadibna dawaar aan samaysanay. mujtamacayaga dhammaan ku joognaa. raggii dawaaradana baray imanka inay wax xoogaaba ka sii jooga, intii kalena way gabowday amba hawlgab bay noqotay. iyo rag waalidkoodba ay dawaarka bareen buu nagu jiraa oo imanka waalidkood waqti xaadirkan dawaarkiis ka daayay, laakiin iyagu iskood ugu shaqeeyo waalidkood oo farsamadii aabii ka dhaxlay. laakiin anu farsamada waxaan ku soo galay in aan meel goob dawaar yimid. goobtii dawaarkan aan ku soo bartay. markaa waan isku dhex qaybsanay. qaarna goobtii dawaarkay ka barteen. qalbigiisa siduu ugu soo jeediyo ayuun looga gacanta qof kastaaba. anigu muddadii horta aan baranay ilaa adigu 4 bilood 6 bilood inay meelahaas ugu qaatay dawaarka barashadiisu. laakiin marba marka ka sii dambeysada wixii uu sii bedelayaa. waqtigaas anu aan baranay hawshu way ka sii adkayd. hawsha la qabanayo waxa jiray in xijaabada dhalaal lagu dhajin jiray, la kaawadeyn jiray. imanka waxa isku soo urta kaawada meesha laga saaray dhalaal oo kaliya taa la saaraa. imankana dhalaalkii waxa naga furtay nimada xijaabada ee aanu tolnaayay imka ku dhajista. waqti xaadirka anagu shay kaliya taan qabana waa tolninka. qofka maanta saacado baro waxa dhici karta inuu ku qaadato sidoo maskaxdiisu soo jeediyo 3 bilood inaana kaga badan wax ka badan aan kaga qaadan. horta ma helno wax xirfado oo dawladda naga soo gaara oo dhalinyarteedana soo gaara. laakiin san aan wali maanaan tagin. laakiin waxaan maqalnay inay jiraan dhowr goobood oo ka mid tahay xaafadda Fuluujo la dhado inay ku taala qayb dawaarada laga barto. xaafadda ay ku taala qayb dawaarada laga barto. goob ka jirta idaacadana ay jirto in goob xirfad lagu barto. wax kale oo annaga tabarucaada amba dawlad ha noqoto amba wasaaradii aan shaqadan aan faraha kula jirno saacidi lahaydna wali ma aan arkin oo goobteeda intay noogu timid wali ma oran bal waxaan dhalinyaratiineed waxa soo amba tabarucaad amba makiinado waxa isku dhex jirta qaar makiinado leh iyo qaar aan lahayn baa isku jira. dawladii waxa gacan saaro annaga waqti xadirkan naga soo gaadhay ma jiraan. muddooyinka u dambeeyay in bulshada soo fahmaysa qiimaha dharka tolliinka waxaas leedahay wacyiga bulsheed waqtigii hore iyo sanadadan dambe farqi intee laga dhaxeeyo. niyo horta dadku markii hore waxay moodi jireen in alaabta China laga keeno. laakiin waqti xaadirkan dadku
waan tolnaa ama waan u tolnaa aan waqti xaadirkan haday noqoto xijaabada haday noqoto dharkii shaarkii ragii imika China ayuunba dadku awal hore ganacsatada ku xidhnaa laakiin imika san xijaabada u tolno meel aan xijaabada aan tolnaan lagin ma jirto Djibouti ku Soomaaliya ku ay nooc Soomaali meeshii degtaba xijaabadan tolno waa la gaarsiiyaa marka anagu waxaan u maleynayaa waqti xaadirkan in xijaabadii dadkii aanbada tolmihii ay waqti xaadirkan ay soo fahmiyaan oo la falgalayaan in dadkeenu ay xirfadna ku rigaraan waxna ay qabsan karaan farsamada gacanta ay nagu aaminsan yihiin anaga ma higsanaysaan ama ma rajaynaysaan mustaqbalka dhow ama ka fogba in sida caalamka muxuu ahaayay shirkadaha waxa jira tailor ah ama muxuu ahaayay naqshadeeyaal inaad naqshado cusub soo kordhisaan oo bulshada maxay ku xiranto oo laga maarmo alaabtan laga soo dejinayo dibadda ama dharkan dibadda laga keenayo إن شاء الله نكون رجوعنا دمان تيدا تسمع ما أنت عسكو طوبنا إن عن سوكر إنه ده واحد أسبوع ومضى ده فرحت قليا ومضى ده صوماليات دولتنا تعطي نقول قرب سيسا أنا قلنا حرفتي أنتي تاجيجا والله إيماننا أنا كان دوّرت هيك جعلنا واحد سوكر إننا ماشي عن قبلنا أن تاجنا إنه أنا كان ربنا بقى إن هراس يسوعنا ده واحد كوكن عن بالشدي عن بكو فرحان إن الموضوع كي عن كأنه أنا كوزان لكن حار الله دولتنا أنتي تاجيدا أنا قرب استاجتين الله dhanka kale maxamed ayaa baaq u diray dhalinta waxaana uu ku booriyay inay fadhiga ka kacaan una feetaan wax qabsi isagoo fariinta dirayna waxa uu yiri dhalinyar fara badan baa maanta iska jirta wadankeena duruufo adag baa ka jirta duruufo badan ka jirta wadankeena dhalinyar badan baa iska bilaa camal ah horta inteeda maanta joogto waxaan ka mid ahaan lahayn maanta waqti xaadirka dhalinyarta hadda iska bilaa camalka laakiin wadankii anagu waxaan ku soo kordhinay inaan xirfad la nimaano aan badal aan goobihii shaqadu ka socotay aan soo dhex galno goobii shaqada ka soo markaan soo dhex galno horta nin walba system ku soo galay meesha dad anagu waxaan ku soo galnay waqti xaadirkan noo yimaada la farsamada doonaa waan soo dhaweynaa waan qaabilnaa bartii farsamadii ay ka sii bilowdaan inankii wanaagsanada sigsaagii baa loo diraa hawlihii kale ee gacan yarista ee soo qabashadii amba duntii amba badhankii amba irbadii inankii hawlahaas aan dirnaa fudud kadibna inankii sidoo u sii dadaalayo wuxuu noqlaa hantiilo dawaar ayuu fuulaa markaan waxaan kula talin lahaa dhalinyarta horta bilaa camalka horta ninna horta waxaan la mudhalan guusha nin walbana xirfadun buu keenay markaan waxaan la dhalinyarta amba noo kaalaya aan garab qabanna wixii xirfad u baahan amba dadaal sameeyo inaguna fadhiga ka kacaba odhan lahaano dhalinyarta bilaa camalka Cabdiraxmaan Ciise Somali Channel Hargeysa